laakiin carruurteenna waxa dhibaateeyey meeshii tarbiyadooda wakhtiga la gelin lahaa yaa waxaa wakhti la geliyaa in dhaqaalo lagu sameeyo hooyada anu dad badan yaan dhex galaa kaysas is haysta aabbuhu wuxuu ku leeyahay hooyadu mana shaqaysa ayadana iga lacag badan waa cajiib moogta xaqiiqo waaye dhaqaalaha carruurta ka soo gelaya waaye marka 6 canug 7 canug oo dhaqaale lagu raadinayo carruurtu marka way burburayaan iskuul baa la geeyaa subaxii baa la kiciyaa aalasay iskuul baa la geeyaa waa laga soo qaadaa daykeer baa lagu dejiyaa waxay ka soo baxaan habeenkii 7 ama 8 bay ka soo baxaan waa laga soo qaadaa xataa daykeerka iyaga laga soo cashaysiiyey gurigaa la geeyaa way seexdaan subaxi waa la jafaa waa la qaadaa weekendigana daykeer baa la geeyaa waxaa loo samaynayaa marka xaqiiqatan waa iska ognahay inaga mujtamaceena meeshaan dadka joogo ma rabo inaan waxyaaba badan aan albaabo badan aan gargaraaco laakiin carruurteenna waxa dhibaateeyey meeshii tarbiyadooda wakhtiga la gelin lahaa yaa waxaa wakhti la geliyaa in dhaqaalo lagu sameeyo waa fahmay tusaale hadda sida aad sheegtay qoysaska burburkooda kadib iyo ka horba mushkiladda dhaqaaluhu waa midda ugu weyn ee dhibaato ahi meesha ka jirta tusaale ahaan waxaan kaloo la kulmay ama aan sheeko ahaan ku maqlay laftirkaygu qoysaska markii ay kala tagaan waxaa mushkilad kale ka taagan tahay canshuuraha sanadlaha oo kale qofka Soomaaliya jooga oo kale ama daawada waxa laga yaabaa inuu fahansanayn sidee cunigaaga lacag ugu helaysaa marka wadamadan horumaray oo kale ilmihii bay waxay ku bixiyaan lacag ujeedada loo bixinayana waa in cunigan wax lagu taro ama qoysaskii lagu taageero noloshooda inkamkooda hooseeyay oo kale maxay isugu khilaafaan hooyada iyo aabbaha oo kale ilmaha in lagu kala xareysto kala la ogol yahay oo sharciyan waxa la ogol yahay aabbuhu inuu wax ku xareysto hooyaduna wax ku xareysato taasoo mushkilad weyn maaha laftirkeeda markii ishi dhaqaale xitaa la fiiriyo carruurta markii hooyadii aabbuhu kala tagaan oo burbur ku dhaco hooya haysa aabbaha inta badan wax uu biilaa caqliyan iyo nidaamiyanba haddii tax return lagu buuxsanayo hooyada ku buuxsanaysa si saxda saas waaye laakiin waxaa dhici karta aabbihii reerka ka tegey oo badankoodu ay dhici karta inuusan xataa biilin ousan wax tarin wuxuu rabaa carruurtii inuu asagu tax return ku buuxsado marka meelaha tax returnada waxaa ka dhacda in lagu tartamaba yuusan kaa hormarin oo markii hore ka bilaabay isagoo ordayo imaanaya uu leeyahay ii buuxi iga gaartay ka kale inuusan iga qaadanin marka waa dulmi baan leeyahay carruurta lagu samaynayo carruurta waalidka waxaan u dardaarmayaa haddii carruurta tax return loo buuxiyo oo lacag soo noqoto in carruurta la geliyo aabbaha shaqaystana